السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بان مهدله سبحانه وتعالى إن قلنا بدي عافمات قبلنا عاوز وكان كاني مدشن مركل الله بعد كلنا وهم ما أدعلني على اليرد سوق وانقابسي ولالكي أحمد عبدي بندقي سبوقة ما سيهان كيوي شرفت مدناي حسن قودن way ka mid yihiin axmediyaadna iyo kooxdooda marka labaad ee kalena maanta caawa halkan waxaan ku xusaynaa ama xasuusanaynaa xasan qowdhan oo ka mid ahaa dadka fariimaha wacan ee dabiiciga ama xeerarka nololeed dadka walaalahooda ee la noolina bini aadamka gaarsiin jiray alayhi salaatu wasalaam nabi maxamed markii risaalada lagu soo dejiyo fidinayay qof kasta oo muslim wuxuu kula dardaarmay aayadna ha noqotay inay wax iga gudbiyaan wixii uu nabigu gudbinayna waxay xeer nololeedkaasina waa nolol sharfan oo hufan marka maansiyahanadu suurad baa lagu sheegay ilaa shucaraa quraankeena shucaraa suurad ilaa lagu sheegay marka maansiyahankaasi wuxuu gudbiyaa risaalada rabbigeena iyo sida bini aadamka deegaanka iyo dadkuba iyo xayawaankaba loola noolaaday quruxda badan wadinka hadraawisada uu sharaxayo quraanka waxa la nagu sheegay namli waxa lagu sheegay daruuro waxa lagu sheegay buuro waxa lagu sheegay geedo waxa lagu sheegay xoolaha marka imika suugaanta markastoo eegtid waxa ay ka hadlaysaa saddexda qaybood ee quraanku u qaybsamay ka mid ah tawxiidka iyo qisaska iyo ahkaamta marka tawxiid waxa lagu sheegaa awoodaha ilaahay afala yanduruuna ila libili kayfa khuliqat marka waad soo istaagaysaadii وإلى الجبال كيف نصبت marka dabiiciyada markay ka sheekeeyaan dabeecada waxay ku tusayaan nolosha rasmiga marka sidoo inanta u amaano wuxuu ku leeyahay sida qaalin geelo inta uu guroob helay cirka baarku gaadho lagu guurin warigi ama sida haragi gimanoo biyo kala ka leeyin geestaana doogiyo wixii isgaadheen marka dabeecada adu marka soo istaagto markaas lagu sheegayaa abuurta ka fiican ee ugu wanaagsan Ilaahay dunida ku abuuray haweenka markaasuu gabadh ka sheekeynaya marka noolaha ugu qaalisan Ilaahay abuuray waa haween waa qof tumarawi waayo raggan iyo dadkan dunida jooga oo dhan ka dhalay sida aawadeed maasiyaanku markuu hadlayo nolosha dabeecadeedina uu ka hadlaya xeerkiina uu ka hadlaya adigana sidoo wax kugu sheego wuxuu kugu sheegayaa xeerarkaastan marka wuxuu ka gaar ahaa xasan qowdhan Ilaahay jaarisi jannaha ka waraabiye maasiyahanada nadiifta karaamada leh isla markaana bisil cuntada markaynu karnay bislaataa bay dhan yeelataa midhuhuna markay baxaan ay bislaadaan bay dhadhan yeeshaan qofka bini aadamkaana markuu bislaadaa waxa weeye marka aanu dadka iska weyneyn magaciisa ku faanin ismuujinin laakiin wixii karaankiisa dadka gaarsiiyo axmed markuu ka sheekeynayay imika wuxuu yiri marka suugaanta uu tiriyay macaan aan jeclaa waxa lagu yiri odayga jaarkeena weeye nin gaaribu iska wado ku shaqaysanayay marka xasan qowdhan qofku marka uu bislaado marka qaabkaas uu noqdo ilaahayna waa kale waladiina لا يمشون على الأرض هونا صومه طبعا كأيوده وسورة المؤمنون وجوه الرجال قف كلا وشيء حسن قولنا مركا قف كاستان تاسولها أو بسل أو شقيستا عن مجلس يقيلاد يهست السبيو أنا وحي سوهين لكن ضد كنا وحش شيء سقروح بدنا وحقد بيا نرال في عنا سميستا وندعيننا وحن خلا ودعيننا وبتكيو كتجي هذا مار هير حسن أردن قارنا وحن نقول هذا يا صاحب كي أحمد عبدي أو إنه سوق قارسي حقته نكا قال جاي ونكسن الصوماليات حقته في عنه شيء يسوي واحد وتري حسن كلامه شيء لكن فريم بينه سوق دبني فريمه عن الولاد اللي سوق دبيه بدك تدخل ميت كله كذا دعاني ما صدقه وغير تشعيل كده تحبيه تشعيل كأنه ما كله روح تشيلكوا بهرنا نورال كلا تشعير طيف كشوقي معي مركا وعيستي مكادو وقادي يشوقها مكان حسن أنا مركي أيرا هيسيس عن مغلي كون نرشة أريما تعيل كتعيش الناس قارو ساميني باين تبعاتنا قارو سامينية مركا وكال أيوه هست شان شداب خد لجود رأي وحبت كذينا لجوش و دماء يضرب لجوش ده وعلى يسكت رأي قرناسها هي أريما ومقعيد ده عادي يدقن سوماليات يو أرهن عافيمات يجيدو أينو أصلوا لنا هاي haddana arrin kale uu ka sheekeynaya wuxuu ka soo jiray gaar ahaan heesihiisa ereyga jacda oo qurux badan heestiimka uu qaadayay farxaane
محوها شوقها مغن إيو قلم شلم إيو محمد سلمان توقع مركو ليه جعل وداجين ما علم كيلا شغل في شافه شغله هلي هرقي جمانه ويمكن يجري هسان وقش على كم مدينة شكرنا أحمد سقري أحمد علي قال شلمبود وهسا شعب عدق يشان أو كلا إيو حسن سيدا كلا تدبر روايات مالها صلى دقيقة وسمي قف كل روايات سميه ضد كوش شيء وإحنا أيضا وحلا والربا دوين سوغانتي جودة أو شمبركش كأنه يوري وحي هرني ما كي هرا قاتينا فريم ببشرة الله وداك الشرتي وعقود تعلق إسرائيل مكان أنت هالك شوقني دليرة ضوء كله تمر كسر عبر سنة ما هي وحياة وقار له وداك وي قار بالا وما يركب هالك فديو ماشي نبادي بيسوقل لكن قف قاعدين لهذا مركو شنشري هاي ونقول عيارة يا نقف فريسو مركو تبنشري هاي وصو عيارة معلن كشجع صدقجير مركو يا ويس دقاقية حدا هذا القف كنا ولا ماي تحررنا الله ما بحنا ده تحرر كمار تعرف كذا حرت مطلقة سيدي سنة قف وحضنا سمينا يو لكن قف صدقجير انتو كاسك يو أفر مرحلات بمرا مركو دشي لا تدبشير سيدي دي لا أفرية طبعا شنية طبعا لا كوبي لباتن يلا بيلات إلا استيلات أفرية طبعا كهرة قفك وحبا لقليا ولا يلعليا أفرية طبعا كدبنا وحلا وحكا بهذا ولا سيا لما حكومه marka waxay ku cunantay qofka noloshiisu sidoo qofku ugu noqdo hadaad walaalo tahay ama waalidu tahay 14 sano hore inaad maal geliso waynaad dilin waynaad caayin waynaad maagin qudwa xasan oo noqoto ilmahaaga 7 sanaad korinayso adiga kula nool yahay waa inuu noqdaa maxay qof adiga oo kala laakiin aanad adigu isku day inaad abuurto ilaahay baa abuuro maskax buu leeyahay 14 sanana wuxuu isku dayay inuu ismaamulo dambe marka wax ka soo baahan yahay inaad u dhiibto hadaad 14 ka daba xukunto waad waayaysaa 14 ka horena hadii aad khasabto uu ka xumaanay marka dad 30 jir markuu soo gaaro wixii ka dambeeyay isaga ismaamulay marka waxay ku jiraan dhalinyaradu daada la maal gelinayay anigu badanka ma qabo in qodadka la xukumo la xidhxidho halkan bay mareysay halkan buu marayay bal sidoo weeyay laakiin waxay u baahan yihiin dadku in la soo dhaweeyo sakada sideed qof la siinay waxa kamid ah maalifada qulubuhu marka labaad waa idin mahad celinaya walaalahay Cabdi Fataax iyo Farxaan inta reer Burcee dhamaantii qalbiga fiican waxaynu ku faananay wanaagsan waxa weeyeen inuu hal abuur leenahay maasiyahana leenahay qoraaya leenahay heesaya leenahay dad karaamo laho dadka marti galiya leenahay dadka soo dhaweeyay leenahay hal wuxuu ma inaga maqan nin la yiraahdo Cabdi Naasir Aad Saciid baa igu yiri bariga dhalinyarada aanu hayn buu inuu qoliyaha galbeedka meelo badan wax la isugu sheegay bay leeyihiin buuri laakiin wax badan ay isu sheegaan ma hayaan inagu qoriyeena reebariga buuriye hal abuurka iyo arrimaha badan hayaana wax badan oo isu sheegna bay haynaa buuri laakiin meelo isugu sheegnayna hayn anigu markaa waxaan bal qaadnay oo iminka socda librariga uu bilaabmay hool leh xarun dhalinyarana insha Allah taala waan dhisaynaa marka waxaan ku talagalay inaan soo ururino dhammaan inta hal abuur ee Burca leeyihiin oo ay center yeeshaan dawladda hoosena maal geliso imikana xarunta Bereeriya baan kireynay oo si voluntary loo soconaysa oo dhalinyarada badankoodu ay ka mid yihiin waxaanu imikana gacanta ku haynaa dhammaan inta ugu badan ururada dhalinyarada haddii kuwa hal abuurka kuwa qoraalka iyo kuwa maxay arrimaha bulshada ka shaqeeya oo aanu tabarucaadna siino baahiyaha ay u baahan yihiin imikana xarunta Bereeriga idin maamushaanu kireynay midanu leenahay oo aynaan hotel ka martiyayna aynu samaysanayno mar labaad iyo mar saddexaad baa idin mahad celinaya Axmedna waa mahad celinaynaa buugana konton buug baan qaadanaynaa Axmedow 20 buug waxaan u qaadanaynaa dawladda hoose 30 kana hablaha badan ee 20 baad siinaysaa inamadana 10 laakiin criteria lagu qiimeynaya criteria maxay ka dhignaa waa inuu xasan qowdho yaqaan ma yahay inuu reer leey maxay ka dhignaa misayna lamaani wada socdaa bay ka dhignaa miya wixii lamaanaa buu shuruud baa ku siinaysaa aad iyo aad idinku mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad aad baa idinku mahad celinaya idinkana waa idin mahad celinaya Axmed oo mar labaad waxaan idinku dhiirigelinayaa dhalinyarada reer Burco ee aan taageerada diyaarka u leenahay qoraalkiina uu ka fiicay qoraalada dadka kale maansadiina way ka fiican tahay maansada dadka kale suugaantiina way ka fiican tahay suugaanta dadka kale
annagu dawlad hoosaan waxaan bala qaadanaa intaan meesha joogno dhalinyarada asad le inaan ka tagno idinkuna waxay isku daydaan inaydaan la habranne wixiina si qurux badan u soo bandhigtaan si aynu gobollada kale ugu iibgeyno laakiin inaan maalin walba dee marti u noqonin wax inoo keenay maalintaa ma isa garan hablo badan oo karti leh baa jooga oo aad u wanaagsan iyo inama badan oo karti leh oo aan la aqoonin haddaad hayso sida farshaxanka loo sameeyo qalabka haddaad suugaan hayso haddaad riwaayad hayso haddaad aragti qorayso iyo haddaad buug cilmiya qorayso iyo haddaad taariikhda magaaladeena iyo dadka maasiyahanadeena ka soo jeedaba aad qoraysana waan soo dhawaynaynaa aad iyo aad baa mahadsantihi wassalaamu calaykum waraxmatullahi